ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen kulan looga hadlayay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Fafaahinta warkan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Saleebaan Xaaji Axmed Raage. dalada ururada bulshada rayidka ayaa maanta Muqdisho ku qabatay kulan wada tashi ah oo la xiriira wada xaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland. guddiga dowladda federaalka u xil saartay wada hadallada labada dhinac, culimada odayaal iyo haween ka kala yimid deegaanada Soomaalida ayaa ka qayb galay shirkaasi waxaana lagu gorfeeyay doorka bulshada rayidka ee wada hadalladaasi. Hoggaanka bulshada rayidka ee Soonsa iyo guddiga wada xaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland ayaa madasha ka sheegay muhiimadda in la sii ambaqaado wada xaajoodka labada dhinac. Ujeedka shirkan ay qabatay Soonsa ayaana lagu sheegay in bulshada ay door ku yeelato geedi socodka wada hadalladaasi oo heerar kala duwan soo maray inkastoo muddooyinkii dambe hakad uu ku yimid. Dhinacyada shirka ka qayb galay ayaa su'aalo weydiinayay guddiga u xil saaran wada hadallada waxaana aragti ay ku biiriyeen qaabka loo ambaqaadi karo dadaaladaasi. Shirkaasi markii uu soo gabagaboobay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soonsa Cismaan Tahliil Shaatax ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii shirka ka soo baxay. kow inay tahay laga maarmaan in dib loo bilaabo wada hadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland in kulamo joogto ah ay guddiga la yeeshaan qeybaha kala duwan ee bulshada ka kooban tahay si xog ururinta u noqoto mid xog fiican loo helo, in laga fogaado tallaabo kasta oo keeni karta xasaasiyad isla markaasna caqabad ku noqon karta in wada hadalladii ay soo socdaan ama ay bilowdaan, in isku socodka iyo arrimaha isku xiri kara bulshada sida ganacsiga, horumarinta mashaariicda iyo ehelnimada aan culays siyaasadeed dhinac kasta oo dhinacyo oo saameyn ku yeelan kara aan la saarin. maxaa yeelay dadku ehel waaye waan isku socon karaan, bulshaduna waa isdhex martaa si taa loogu gudbano in aan culays siyaasadeed aan la saarin ama la siyaasadeen. ugu dambeyntii dowladda bulshada rayidka iyo guddiga wada xaajoodka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil guddoomiyaha guddiga wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo shirkaasi wada tashiga ka qayb galay ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay dadaalada socda ee la xiriira wada xaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland. walaalayaal marraba khudbad dheer inaan galo. guddigan marka waxaa loo sameeyay inuu wadada wada hadalka uu ku raadiyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta Somaliland, xal waafaqsan midnimada, wadajirka, waalnimada, dowladnimada, qarannimada Soomaaliyeed in la gaaro. guddoomiyaha Soonsa Cismaan Tahliil Shaatax ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay muhiimadda shirka ay soo qaban qaabiyeen oo ay ku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo guddiga wada xaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland. runtii intay wada hadallada bilowdeen 2012 wax badan ayaan gacan ka geysanay. gacanta aan geysanayna waxay ahayd mid dadban oo intaas aan ka shaqeynaynay waxyaabaha hor istaagi kara wada hadallada, balse si toos ah aan uga qayb gelin ama aan ugu mid noqon wada hadalladaas haddaan ururada bulshada rayidka. wada hadallada soo bilowday 2012 inta badan heer siyaasadeed ayay ku socdeen. waxaad muuqatay kaalinta bulshadana inay muuqan oo aysan ahayn mid miiska wada hadalka ka dhex muuqato. Saleebaan Xaaji Axmed Raage, Somali Cable, Muqdisho.